بسم الله الرحمن الرحيم ومحيدين العيد iyo barnaamijkii dareen ugu qodobka amaanta ku xusayo waxaan ugu magac daray caada qaatayaashii iibsaday Afrika. Adduunkan ku noolnahay maanta waxaa la wada ogsoon yahay qaaradda Afrika inay tahay midda ugu hooseysa marka la barbar dhigo qaaradaha kale, ama dadka Afrika inay yihiin dadka ugu hooseeya xagga nolosha, tacliinta, dhaqaalaha, siyaasadda, maamulka iyo dowladnimada. Haddaba maxay ku dhacday taasi? Sida taariikhdu xusayso, ummad walba oo ay dhibi ku dhacdo, dhibtaa qaybta ugu weyn waxaa u sababa isla dadkeeda. maxaan sidaa u leeyahay? waxaan u leeyahay waxay tahay, waxaan la wada soconnaa dembiyadii adduunkan aan joogno ka dhacay. Kuwa ugu waaweyn waxa ay ka dhaceen qaaradda Afrika. mid waa kan koowaad oo ah gadiskii dadka, adoonsigii dadka laga baamushtarahay. midana waa xasuuq loo geysto ummado. waxaa la xusaa xasuuqii ka dhacay Jarmalka oo loo geystay dadka Yuhuudda. waxaase jira xasuuq ka dhacay Namibia oo isla Jarmalku geysteen, oo kuwa ugu xuna ka mid ah adduunka soo maray. kuwa ugu xun buu ka mid yahay. kasoo gudub aan usoo laabto tan ah gadiskii dadka, ama kabacmushtarkii dadka, adoonsigii, slavery wixii loo oran jiray. Afrika waxa ay ku bilaabantay 1525 in dadkeeda maraakiib la saaro la gado. waxa ay ku socotay 1866. waa intee qarni? 1866 waa xilliga dowladda Mareykanku ay joojisay iibsiga dadka. dowladda UK 1807 bay joojisay iibsiga dadka. Afrika, ama dadka Afrika oo ahayd dadka loo geysanayay dhibtaas iibsiga, ama ay ku dhacaysay dhacdada foosha xun, muddada intaa la eg waxaa lagu qiyaasaa dadkii maraakiibta la saaray ee laga dhoofiyay Afrika 12 milyan inay ka badnaayeen. 2 milyan oo ka mid a badda korkeeda ay ku dhimatay dadkaas. intii kale waxaa la kala geeyey wadamada Mareykanka, Latin America iyo Yurubta. dhibaatada noocaasa oo ku dhacaysay Afrika waxa uga xumaa dadka Yurubiyaanka, ama dadkii caddaanka ah oo geysanayay dad Afrikaana oo weliba ah mas-uuliyiintii Afrikaanka ee xilligaas. waan ognahay xilligaas dowladda ma jirin Afrika, laakiin waxaa jiray boqortooyooyin qabaa'ilo haysta, ama qabiil asagoo boqortooyo ah. raggii noocaas ahaa ee ummadaha sheeganayay hoggaankooda Afrika ayaa waxay noqdeen kuwii loo soo maray inay dadkooda gadaan. dadka intaa la eg waxay ka baamushtarayay oo dadkii caddaankaa u samayseen wakiilo. wakiilada waxaa la siiyey title la yiraahdo kabase. waxa uu gadahayay dadkiisa, wuxuuna wakiil u ahaa caddaanka uu ka gaday, iyo boqorka ama chief caaqilka deegaankaas ka madaxda. dadkii noocaas ahaa markii lagu dhawaaqay joojintii dadka, waxa ay sameeyeen in ay kasoo horjeestaan. waayo dad badan baa ugu jiray suuqa iyo kaamamkii ay lahaayeen oy beec ku raadinayeen. waxay qaadanayeen sandareer ay ahaayeen. niman ka mida waa lacag bay ka sameeyeen.
laakiin dee qofku wuxuu gadanayo waa dadkiisa, uu caaqilka u ahaa, boqorka u ahaa, weye dadku gadanayo. nimankaas waxa ay diideen Yurub ama Maraykanku inuu joojiyo gadiskii dadka. markii labadan suuq ay ka xirmeen waxay bilaabeen Brazil inay dadkii u diraan. ilaa 1888 dadkii halkaas ka gadayeen oo suuq uga raadinayeen. nimanka lagu xuso dadkaas kaabaseerada noqday ama caaqilada noqday oo dadkooda gadanayay, dhowr ka mid ah ayaan magacyadooda inaan idiin sheega rabaa iyo wadamaday ka soo jeedeen. Rabiix as-Subayr wuxuu ahaa Suudaani. waxa uu ka tegay Suudaan, wuxuuna saldhigtay wadanka hadda Chad la yiraahdo, asagoo dadkii iibsanay 1842 ilaa 1900. markii dambe waxaa dilay Faransiiska dilay ninka 1900 baa la dilay kadib markuu diiday inuu joojiyo suuqa kaliya maaha, wuxuuna dilay niman missionary oo Faransiisku soo diray uu dilay. waxaa ka mid ah Tib nin la yiraahdo oo Sinsabaari ah 1832. wadankan la yiraahdo East Congo oo gobolkan hadda bariga Congo la yiraahdo oo dhibaatada ka jiro, ninkii ugu horeeyay oo meeshaas qabsaday buu ahaa. suldaan buu sheegtay, wuxuu wakiil ugu ahaa suldaankii Sinsabaar fadhiyay. markii dambena asaga sheegtay, wuxuu sameeyay suuqa ugu badan oo dadkii noocaas ah ninkii gatay. wuxuu ahaa nimankii dhulbixinada la oran jiray ama oo reer Yurub, niman kamid oo ugu caansanaa ninkii kaxeeyay buu ahaa oo geeyay. markii dambena isla Yurubiyaankiiba waxay ka dhigeen governor, gobolkan bariga Congo looga dhigay governor markii joogsaday dadkii. waxaa ka mid ah nin la yiraahdo Suudaani ah oo boqorka waxa loo bixiyay boqorka iibsiga dadka loo bixiyay. al-Subayr Raxma Mansuur baa la yiraahdaa. waa ninka ugu badan oo lacag ka sameeyaa la yiraahdaa. ninka lacagta ugu badan ninkaan sameeyay dadkii Suudaaniyiinta ah buu ka sameeyay. waxaa jira nin la yiraahdo William Ansa, waa sheeko aad u weyn baa ninkaan soo madhay 1736 ilaa 1770 buu noolaa. wadanka Ghana la yiraahdo wey. asagoo wuxuu uga duwan yahay aabihiis boqor buu ahaa. wadanka Ghana gobolkan xeebta ku yaal ninka haystay buu ahaa. kaabasee buu qaatay inuu wakiil u noqdo cadaanku dadkiisa iibiyo. siduu dadka u iibinayay baa wiilkan William Ansa la yiraahdo oo dhalinyaro ah baa maalintii dambe cadaankii uu la hadlay. wuxuu yiri, ninkan waxaan rabaa in England la geeyo oo wax la soo baro, waayo waa ninka dhaxalkayga lahayd. markabkii dadka siday markii la saaray wadanka la yiraahdo Barbados baa laga dejiyay. kabtankii markabku wuxuu sameeyay, markuu meesha ku haray buu laad uga dejiyay, asna iibkii baa lagu daray. wiilkii boqorka wiilkiisii William Ansa iibkii baa lagu daray. meeshii wuxuu ka noqday adoon lagu falo beeraha. William Ansa 5 sano halkaa joogay. maalin dambe markab kale oo ka yimid Ghana baa waxa nin la socday oo nimanka dadka gada ah kamid ah oo reer Ghanaians ah ku soo arkay meesha. markuu soo laabtay odaygu u sheegay, wiilkaaga halkaas buu joogaa. ninkan aabihiis oo boqorka ahaa wuxuu la hadlay nimankii cadaanka ah iyo dowladda Ingiriiska, missionkii England buu la hadlay. wiilkii waxa laga soo kaxeeyay Barbados, waxa la keenay Ingiriiska, London baa la keenay. waxa loo sameeyay wax la yiraahdo magacii inuu yahay amiir baa la siiyay, uu amiir sugo yahay. waxbarasho hore laga geeyay. habeen waxa dhacday taariikhda wiilkan wuxuu uga duwan yahay. tiyaatar wuxuu galay, riwaayad buu galay, socoto buu ka qayb galay. riwaayadu magaceeduba wuxuu ahaa ama lagu jilayay amiirkii sida qaldan loo iibsaday, adoon ahaanta loo iibsaday. isla sheekadii asaga ku dhacday baa riwaayad laga sameeyay. riwaayadii buu habeen iska galay. habeenkii markuu galay baa waxa riwaayadu lagu soo bandhigo dhanba waa dhibaatadii asaga ku dhacday. asagoo amiirkii loo waxaynayo
wuu dhammaysan waayey waayo 5 sano addoonsi uu soo maray buu ogaa oohin buu uga baxay meeshii dadkii oo la yaaban buu orod uga baxay wiilkii noocaasa markuu waxbarashadii dhammaystay aabihiis wuxuu ugu talagalay inuu u noqdo yurubiyankoo dhan indha iyo dhega inuu u noqdo wiilkan markuu wax soo barto markuu ku laabtay Ghana oo weliba asagoo addoonsi soo maray 5 sano ah Ghana markuu ku noqday bilihii hore wuxuu noqday qoraabuu noqday oo jariidad ka jidhay bariga xeebta Ghana laga soo saari jiray buu qoraa ka noqday bili kadibna wuxuu la wareegay shaqadii aabihiis dadka ugu badan oo dadka Ghana ninka gaday weey waa ninkii soo maray hadda dhibta asagii waa meeshii ka bilaabay markuu meeshuu 10 u noqon lahayd wixii soo maray nin la yiraahdo waxa jira asna Francisco Falakis de Sos ninkan Francisco wuxuu ahaa wadanka Brazil buu ku dhashay madowga Brazil buu ahaa wuxuu yimid West Africa wadankan Benin la yiraahdo wuxuu noqday ninka ugu badan oo ma ahan dad kaliya dahabka waa ninka bilaabay ugu horeeyay dahabka inuu ka baacushiro dhowr wadan oo xeebta ku yaala hadda wadama ahna uu isku maro ninkaasi wuxuu sameeyay suuqa ugu weyn buu sameeyay wuxuuna noqday ninka ugu caansan buu noqday Francisco ilaa markii dambe caruurtiisu dadku dhalay 80 waa dhaafeen maanta aan joogno wadankan Benin la yiraahdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo soo maray wuxuu ka soo jeedaa ninkaas dadku uu dhalay ciida ka batay dhowr wadan bayna ku kala jiraan oo waa rag ugu marka waxa lagu xusaa dadka ugu caada qaatayaashii Afrika ugu xumaaba qayb kamid ah dumar baa ku jiray wadankan Angola kale 2000 baa la jijibiyay gabar Angolesa xeradii ay dadka ku hayn jiray ilaa hadda adoonteedii waa nool baa la yiri maxkamad baa laga dhigay marka dhibaatada ugu weyn oo soo gaadhay marka dadkii sida loo waxaynayo dadkii iibinayay dadka ma ahayn dadka ku soo duulay waxay ahaayeen nimankii hoggaanka sheeganayay nimankii caaqilada sheeganayay nimankii boqorada sheeganayay bay ahaayeen waxay iibsaday dadkooda waxaan u soconnaa hadaba taariikhda noocaasa marka aan haysano oo dhaxalgalka ah 30 sano Soomaaliya maxaa ka dhacay aan isweydiin 30 sano Soomaaliya maxaa ka dhacay 30 sano oo dawlad la'aan iyo dad la'aan babaday Soomaaliya taariikhda marka laga hadlayo 10 waxa ugu filantan sida Afrika ay ula hareen dadkii noocaas ah Soomaalina waxa la haray dadku u sheeganayay hoggaanka ayagii baa kala qubay ayagii baa nin walba jeej ama koox gooni ah magac ula baxay qabiilka doonta ku sheeg meel buu ku xirtay dan aan jirin oo ah inuu asagu anfacayo ama beec uu ku raadinayo baa 30 sano jiray waxaan oran karaa waxaan la oran jiray kaabaseerada in ay 30 sano Soomaali ku dhex noolaayeen lagana helayo hadaba waxay u taallaa Soomaali inay xusto sheegto yaa ahaayeen kuwaas qabiil walba waa ku jireen waxayna dhaafsiisanayeen sandareero wax walba taariikhduna waa 10 hadday Soomaali ku baraarugsanayn ama hadday u toog haysaba gumaysigii shalay jiray ama addoonsigii la soo maray maanta waxa jira baa ka daran kana cawaaqib xun runta marka laga hadlo way waxaan socdoo dhan ummado shisheeye ah baa loogu adeegaya dad annaga ah baana matalaya nimankaas caada qaatayaashii hore la haray wadanka iyo dadkeenaba
wax la isku hayo oo maanta aan idhaahno waxaasaa jiro runa ma jiraan. waxa runta oo jiro waa dad raba iska daa Soomaali kale inay dhibaato u geysan. nin walba deegaanka ama qabaylka uu kasoo jeeda buu dhibta ugu daran u geystay ama u ku haya, ayuu beec ku raadinay. waxaa loo baahan yahay haddaba oo aan u xusahayo qodobkani wuxuu yahay inaan maskaxdeena furno. waqtiga aan taaganahayna aan ogaano waxa jira iyo marxaladan ku sugannahay. haddaad og tahay marxaladda ama maanta meesha adduunku marayo, waxaan qabiilka loo yiraahdo macno kuu samayn mayso. idinkoo dhan baa doon wada saaran. sidii aan ku badbaadi lahayn ama Soomaali ku badbaadi lahayd ama ay qaaradan aan ku jirno dhan ku badbaadi lahayd, in laga fakaro baa wax walba ka horeysa. Soomaali dad ayagoo dhan beecaan dhul iyo dadba maanta uma fakari kadhid sida aad rabtid haddii aadan isku diyaarin runta jidha waxa ay tahay. marka casharkani ama taariikhdan xusay waxay u tahay dhaxalgal dadka garaadka leh. waxaana filayaa in badan oo idinka mid ah inay u noqoto waxay ku xasuustaan berri maanta waxa socda. magacyada lala baxayo oo aan Soomaaliga ka hooseeya wax macno ay samaynayaan male. in lagu daba fayro caado qaatana wax macno ay samaynaysa male. adna waad ku lumaysaa, ubadkaaga berrina waa ku lumay. marka waxaan ugu talagalay sidaad ka dheehan ka dhanba ummad walba dadkeedaa dhisa ama dadkeedaa la hara. Soomaaliya u istaaga inaad dhisataan dalkiina iyo dadkiina, walaalowdaan kana baxdaan walahawga iyo cawaaqib xumada aan uga tagayno ubadkeena iyo dalkeena berri. wabilaahi tawfiiq.